guddiga xaqiiqraadinta degmada Walaweyn ee uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Nuur Siidi ayaa shalay waxa ay soo gaareen degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose guddiga ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen odayaasha dhaqanka degmada Walaweyn iyaga oo ka hadlay arrimaha la xiriira khilaafaadkii ka dhacay degmada Walaweyn ee ku saleysnaa arrimaha qabaa'ilada shirka intuu socday ayaa waxa looga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa falalka la xiriira arrimaha qabaa'ilada taasi oo keenta gacan ka hadal u dhiig badan ku daato kulanka markuu soo gabagaboobay kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay Yaasiin Maxamed Bashiir oo ah gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose ahna gudoomiyaha guddiga xaqiiqraadinta degmada Walaweyn ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose u soo magacaabay xaqiiqraadinta degmada Walaweyn oo la hadlay telefishinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ay maanta wada hadallada ay bilowdeen isla markaana ay kulamo la yeelan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada wiil waxaan ku wada jirnaa howlihii shaqooyinka nool soo idmaday ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo noo soo magacaabay ayaa howlihii maanta qaybo ka mid ah aan bilaabnay maanta waxa la kulanay odayaasha dhaqanka degmada Walaweyn qaybo ka mid ah wiil waxa noo dhiman qaybo badan kulay odayaasha kaliya ka karno waxa maanta degmada Walaweyn odayaasha kaliya ma ka wareysan doonee kulli bulshada wixii ka soo jeeda degmada dhalinyar ha ahaato culum ha ahaato haween ha ahaato ururada bulshada rayidka ahaado qof walba wixii qosay arrimahan bulshada xogta inaan ka aruurino kulli maanta waa bilaabnay howshaaniisa maalmahan waanu sii socon doontaa assalaamu calaykum waraxmatullaah Cabdiqani Maxamed Xasan raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose